gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salebaan Ramaax oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Axmed iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay kormeer hal maalin qaatay ay ku soo gala bixiyeen degmada Gudmo Biyacas iyo deegaamada hoos yimaada. Safarka wafdiga ayaa ku wajahnaa wacyigelinta kheyraadka dabiiciga, xakamaynta dhibaatada gumaadka dhirta, dardargelinta maamulka, xoojinta nabadgelyada, ka qayb qaadashada qaadhanka dhismaha wadada gobolka Sanaag iyo xog ogaal noqoshada xaaladda nololeed ee dadka deegaanadaasi. Waxaana wafdigu markii ay gaadheen magaalada Gudmo Biyacas halkaasi ay kala kulmeen soo dhaweyn mug iyo miisaan leh oo shacbiga deegaankaasi ay ku qaabileen. waxaana halkaasi shacbigii soo dhaweeyay kala hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salebaan Ramaax iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Axmed iyo mas'uuliyiintii weheliyay oo dhammaantood ka mahad celiyay sida diiran ee degmada Gudmo Biyacas loogu soo dhaweeyay. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Axmed oo ugu horreynba halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay siyaasadda wasaaradooda ee ku wajahan ilaalinta kheyraadka dabiiciga. haddaba markii ay aragtay wasaaraddu tamarta iyo macdanta iyo dawladda Soomaaliland oo isku duuban waxay ikhtiraacday inay wacyigelin idin samaysay idinka waxani waxa uu faa'iido leeyahay inay idin sheegto dabadeedna la idin raadiyo suuqii si aan loo kontarabaanin oo wadamada jaarkeena aan loogu kontarabaanin inta gamba la idinka siisto ama jaad la idin kano la idinkaga qaato inaan la kontarabaanin talabaad macdantu waxay leedahay raadad la raacana way leedahay raadka haddii aad baabiiso berrito haddaan shirkado maalgelin oo wasaaraddu ku hawlan tahay in la raadiyo hadday soo hesho raadkii haddii la baabiiyo berrito lama helayo halkii deposit ama kaydku halku yaallo berrito lama helayo taana haddii ay aqoon ku filan aydan lahayn inaan la baabiin macdanta raadadkeeda weeyaan wacyigelintaan ku jirno talabaad inaan ilaashano deegaankeena quruxda badan laakiin muhiimadii socdaalkayaga waa la sheegay waxaana ay tahay inaan ugu kuur galno xaaladda dhabta ah ee ka jirta degmooyinka oo ay tahay sidii caadada noo ahayd wiigiiba 2 maalmood inaanu kormeer gobolka ku samayno. maanta waxaa jaanis nasiib u yeelatay inaanu Gudmo runtii joogno togagaalna u noqono xaaladda dhabta ah ee ka taagan iyo in aanu kormeerno oo ogaano la dagaalankii xaalufinta sida dadweynuhu u rabaan iyo qaabka uu uga hirgalay imika siraad leeyahay ugu dhow sidoo uga hirgalay oo ay ka fuleen ciidamadii. waayeelka aqoonyahanka deegaankaasi ayaa iyaguna dhinacooda ballan qaaday inay fulin doonaan talooyinka iyo tilmaamaha waftigu soo gaarsiiyeen waxaana cadeeyeen inay meel uga soo wada jeesan doonaan ilaalinta kheyraadka dabiiciga iyo badbaadinta deegaankaba. wuxuu soo maray damalla xagare kulaal meesha la darar weyn ceelaf weyn usagoo aan seexan buu maantana tan jooga allah kula baa. intaa kadibna markii wafdigu ay ka soo laabteen magaalada Gudmo Biyacas waxa ay soo baabiyeen oo ay dab soo qabadsiiyeen hogobyo dhuxul ah oo si sharci darro looga shidayay buurta Siraadley. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, Aynaba News, Argabo.